السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا بحر الدوق أكاديمي وقيبت اللبات يا عشر كيني في collection system waxaynu qeybtii hore kusoo diyaarsanay system design keenii wax yarna way noo dhinaayeen laakiin wixii noo dhinaana waynu ku daraynaa waxaynu la bilaabaynaa inaynu automationkii amaba formulooyinkii aynu systemkeena automatic kaga dhigaynay aynu isticmaalo ugu horreyn waxaynu ka bilaabi doonaa inagoo aan waqti badan cunayn hore ayaynu ka bilaabaynaa casharka insha allah marka ugu horreyn waa inaynu horta ardayga bal aynu u generate garayno id-gaas waxaynu ku xidhi doonaa columnka student name waxaynu sheegi doonaa amaba ku xidhi doonaa xaalad haddii student nameku uusan marnayn in la generate gareeyo id-gaas maxaan uga jeedaa haddii id-ga haddii yacni student nameku uu maran yahay wax id ah oo la generate gareyn doono ma jiri doono yani ma rabno in wax id ah la generate gareeyo ma rabno meel maran in id loo generate gareeyo waxaan filaya inaad ila fahanteen marka balan isla fiirino waxaynu xaggan waad ku qori kartaa xaggan waad ku qori kartaa no problem xaggan ayaan baan ugu doorbidaa ugu horreyn calaamaddeeni aynu excelka wax walba kaga bilaabi jirnay waa maxay waa equal ugu horreyn waa inaynu check garaynaa marka haddii student namekan uu maran yahay iyo haddii uusan marnayn waxaynu isticmaali doonaa if haddii waxaynu leenahay maxay student namekan okay haddii student namekani not equal operator ayaynu isticmaali doonaa haddii excel operators aadan garanaynin waxaad u baahan tahay inaad soo taqaanaa fahantid operatorska haddii aad hore u qaadatay excel oo aadan operatorska baranna I think inaad waxaan u baranaya markaas odhan karnaa haddii uusan la mid ahayn labadan quotation oo waxba dhexda ugu jirin waxay la mid yihiin null yani meel waxba ku jirin empty ayay la mid tahay marka maxaan uga jeednaa waxaan uga jeednaa haddii student nameku uusan marnayn okay halkaa waxaan filaya inaad ila fahanteen coma ayaan leeyahay haddii uusan marnayn oo ay true noqoto oo xog ku jirto waxaad ii samaynaysaa ugu horreyn xarfahan iga bilow id-gayga xarfahan anigu hadda st-daas waxaan usoo gaabsan doonaa student id adiga bedelo waxaa u baahan tahay ka dhigo aniga hadda student yani amaba aan ka dhigo sid baan ka dhigo aan uga jeedo amaba id baan isticmaalo okay id baan isticmaalo si aad fahantaan kadibna waxaan ku xidhi doonaa quotationkayga waxaan isticmaali doonaa calaamadda ampersand oo ku taala number 7 ampersandan waxay inoo qaban doontaa in st-ga aynu sheegnay iyo 00 aynu sheegi doono ay iskugu keen qabato oo concatenation isugu keen samayso okay marka text function ayaa isticmaali doonaa marka waxaynu sheegi doonaa rowga aynu ka bilaabi doono markaas maxaan ku irahday aynu ka bilaabi doono macnaa id-geena aynu ka generate gareyn doono rowgeena muxuu noqon doonaa haddii xagga iga jeedid haddii aad u jeedid waxaad u jeedaa inaynu joogno 7 ka warwarin waxaan tartiiri doonaa 7 marka waxaynu ka bilaabi doonaa rowgeenu wuxuu ka bilaaban doonaa 7 waynu sheegi doonaa kadib waynu ku xidhi doonaa waxaynu ka jari doonaa 6 haddaba 6dani maxay tahay xaggan waxaynu joognaa row 7 okay row 7 maadaama aynu joogno waxayna ka koreeyay 6 row okay annaga waxaan rabnaa id-geena inuu ka bilowdo row 7 sidaa darteed waxaynu specify garaynay oo u sheegnay in laga bilaabo sorry halka waxaan ka tegay columnkii baan ka tegay columnkani waa maxay waa d7 waa d iyo row 7 columnku waa d macna waa column d iyo column row 7 marka 6daas kore naga ignore garee oo naga jar that means xagga haddii in ka daayo id-ga kor ayaa laga soo bilaabaya okay ama halkana 7 inoo ka bilaabaya mar rabno waxaan rabnaa in xagga kowna inoo kaga bilaabo 6daaba in ka sarreysa waan iska jaraynaa waan iska tirtiraynaa I hope inaa intaa ila fahanteen
كوما ayaan leeyahay marka waxaan raacin doonaa inta zero aan u baahanahay yani hadda 4 ama waxa rabtid ka dhig tusaale hadda aniga 4 ayaan ka dhigay 5 6 7 8 waxa rabtid waa ka dhigi kartaa then aan ku xidhi doonaa markaan ku xidho waxaan sameynayaa haddana bracketka ayaan ku xidhayaa كوما ayaan leeyahay hadda waxaan sheegayaa haddii ila waxaanu niri haddii wax name aan lahayn oo student name-ku uu miran yahay id ha ii generate garayna okay sidaa darteed intii error la soo celin lahaa waxaan sameynaynaa null ha iska ahaado baynu leenahay ha iska marnaado intaa inay la fahanteen ayaan rajeynayaa inter ayaan leeyahay bal u fiirso maxaa dhici doona great saa ujeedidba maxay hadda haddii magacaan aan tirtiro ila fiiri halkaas magaca haddaan tirtiro u fiirso id gu tegaya sababtoo ah xaaladda la jeegaraynayaa waa student name-ku hadduu maran yahay maxaanu niri waxba hanoo generate garayna ha iska marnaado qaacidadii ayuu marka qaadan doonaa aan soo celiyay marka magacii haddaan soo celiyana aan inoo generate garanaya 20 arday meelahaas imika haysanaa xogta waa inoo soo gelgeliyay oo yani waqti ayayna ka qaadanaysaa haddii kale so magacyo ku guro class ku dhigtona si sectionkiisana si that's simple okay intaas waynu generate garaynay intaas wayna ka dhantahay waxa kale oo inagana total fee-ga waa inaynu ardayda sheegnaa lacagta laga qaaday 30 iyo tusaale ahaan u gelin doonaa so hal mar ayaan kulligood waxaan leeyahay 30 ayaan ka wada qaadayaa ilaa hal mar kulligood 30 igu wada gelin waa gartay okay halkan waxaa la gelin doonaa lacagta qofkaasi uu bixiyay lacagta qofkaasi uu bixiyay haddii uu qayb bixiyay qaybtii baa la gelin hadduu wada bixiyayna 30 kaas un baa la gelinaya waa gartay haddaba haddii qofka lacag ku hadho si aynu xaggan uga soo muujino iyadana waxaynu isticmaali doonaa calaamadeeni equal ayaa isticmaalayaa kadib waxaan leeyahay total fee-gan waxaad iiga jirtaa okay waxaad iiga jirtaa amount-ga uu bixiyay kadibna inta ayaan leeyahay hadda qofkan dadkan lacag may bixin wakaas 30kiiba waa lagu wada leeyahay qof kasta $100 baa lagu leeyahay haddii halkan marka aan geliyo 10 camal u fiirso 20 ayaa lagu leeyahay uu leeyahay qofkaasi 10 buu bixiyo 20 ayaa lagu leeyahay okay waynu soo noqon doonaa xaggan status ayaa isagana jira sida systemkeeniiba aad ka aragteen so statuskan wuxuu u baahan yahay inaan xaalado dhowr isagana ku xidhno ugu horreyn waxaanu samayn doonaa inaynu check garayno column-ka total fee-ga horta ma maran yahay mise waxbaa ku jira okay so waxaan leeyahay if haddii column-ka la yiraahdo total fee-gu okay total fee-gu haddii uu la mid yahay haddii uu la mid yahay null haddii uu null la mid yahay comma ha iska marnaado kana waxaan uga jeedaa total fee-gan column-yadan haddii ay maran yihiin oo ayna wax data ku jirin haddii kale wuxuu iska soo muujin doonaa hadhow toole paid ama unpaid mid unba iska soo muujin doonaa so ma rabno waxaan rabnaa haddii xaggan aysan wax tira aba ku jirin inuu asagana inuu iska marnaado intaas inay la fahanteen ayaan rajeynayaa comma ayaan sii leeyahay marka shaqadeenu ayaynu bilaabaynaa marka waxaan leeyahay marka if haddii J7 maxaa inoogu jira amount paid ayaa inoogu jira haddii J7 marka ay la mid tahay null waxaan siinaynaa okay unpaid ayaan leenahay unpaid yani qofkaas lacag ma uusan bixin okay comma ayaynu leenahay haddana waxaan leenahay if haddana waxaan ka tegay xaggan sorry xaggan aan ka tegay semicolon good
so haddana waxaan leenahay another if. Okay, haddii marka k7 iyadana, okay, haddii k7 oo ah amount due uu la mid yahay zero, haddii uu isagana zero la mid yahay comma, waxaad siisaa isagana maxay paid ayaan siinaynaa ku xidh comma dhe. haddana intaa wixii kasoo haray marka waxaad tiraahdaa partially paid. partially paid. then waan iska xidhi doonaa inta ifay noo xidhan. intan isla fahna marka. horta intan iftan ugu horeysa waxay jeegarayn doontaa haddii horta total feegani uu midhan yahayba. haddiiba uu midhan yahay xaggana nal ha la mid ahaato ha iska marnaato oo wax result ayaan laga soo muujinin. haddii j7 oo meeshan amount paid-ka ahi ay la mid tahay iyaduna nal unpaid ayaan soo qori doonaa, saaska uga soo muujin doonaa. yani qofkan dee lacagba muu bixinba, haddii xaggan aan tiraba ku jirin wax lacag ah maba uusan bixin. okay, intaana soo dhaaf. waxaad u timaadaa intan haddii k7 waatan waa amount duuga lacagta lagu leeyahay haddii ay tahay zero, okay, oo wax lacag aan lagu lahayn, qofkan lacagta uu bixiyey paid u soo qor. okay, intaa wixii ka soo haray lacagta qayb waa qof qayb bixiyey, intaa wixii ka soo haray wax kale kama soo hari karaa. soo balaa intan bismillah. good. kulligood maxaa loo soo daabacay unpaid, sababtoo ah xaggan hadda haddii aad u fiirso bal lacag ayaa xagga gelin doonaa. waxaan leeyahay 10. okay, qofkan lacag qayb buu bixiyo partially paid weeye. haddii aan usoo qoro 30kii uu bixiyey qofkani waa maxay? waa paid. okay, kalaro ayuu lahaa haddaba. waxaan ku idhaahday systemkan saa u arkayseen statuskan kalaro ayuu lahaa. okay, waxaan samayn doonaa waynu haraynaynaa marka u horeysa, ama ku jiid oo saa ugu jiid sidaas oo kale. sorry, cancel de. saas ugu jiid. ama waxaad samayn kartaa inaad salka u horeeya intaad dooratid hoos aad tagtid shift intaa qabatid aad click ku siisid. okay, kadib homekeen ayaan ku noqon doonaa. waxaynu tegi doonaa conditional formatting. kadibna waxaynu leenahay highlight. kadibna waxaan dooran doonaa equal to wixii paid ah. okay, wixii paid ah waxaynu siin doonaa greenkaas, yani green fill with dark green text. okay, saa ujeedid maxay cagaar ayay noqotay. mar labaad ayaan ku noqon doonaa. kadibna waxaan leeyahay highlight equal to wixii unpaid ah iyagana waxaad siin doontaa. okay, wixii unpaid ah iyagana colorkaasi yes si automatic u soo qabsaday. kadib kii saddexaad baa ii haray oo ahaa partially paid. partially paid-ka waxaanu siin doonaa isagana yellow. okay, yellowgan ayaan siin doonaa. so haddii xaggan aan idhaahdo 10 meelahaas yes oga aynu mataqaanaa ku fit garayno. okay, hadda waynu haysanaa iyadana mataqaanaa intaasu iyadana wayna ka dhantahay. okay, xaggan iyadana waxay u baahannahay inaynu data validation ku samayno. sidoo kale waan highlight garayn. data ayaan tegi doonaa. data validation ayaan leeyahay. waxaan tegi doonaa list. waxaan leeyahay qofkan lacagta wuxuu ku bixin karaa EVC comma ayaa sidan hore u saaragnay comma ayaa loo dhexaysiiyaa. sahal comma waxa kaloo jirta sad. waxa kale oo jirta cash. waxa kale oo jirta inuu samayn karo
bank transfer. Okay, intaasna haasaan ka dhigin doonaa saa ujeedid hadda hayle. Yes, we can select sahal saad. xagga kan iyadana waxaynu u baahannahay inaynu kasoo muujino sax iyo qalad. Okay, waxaan sameynayaa intaasna waan highlight garayn doonaa iyadana ilaa intaas kadibna data ayaan tegi doonaa, validationkeena ayaan tegi doonaa. So ugu horreyn aan soo koobiyeysto systemkeena ayaan tegayaa. waxaan sameyn doonaa xaggan baan tegayaa data validationkan tegi. intan ayaan kasoo koobiyeysanaya. ka warwarin waa idiin soo dhigaya telegramka idiin soo dhigaya koobiyeysta ka qaata gashta. aan ku noqono systemkeenii data validation soo fur list dheh koobiyeysti garay xaggan. Good. Okay, ayaan leenahay marka. Okay, wixii bixiyey saasaad oga sixi kartaa, no problem. wixii aan bixin tan waad saari kartaa. Good. halkaa waxayna kaga dhan tablekeenii. bal qof aan ku darno. Okay, qof aan ku darno. sorry. aan raahdo Axmed Ali oo kale. then inta raahdo you good. koil atan ayaa loo generate gareeyey. class ayaan siin doonaa 2 sectionkiisu yahay C. good. xaggana waxaa lagaga leeyahay lacag ah $30. Okay, good. Great. intaas waa ina ka dhan tahay. Okay, arday baa jiray ardada mataqaanaa qoraal YouTube oo commentiisu qoriyo lahaa markaa bantanada linkiga siinaysay si fiican looma arkayo. marka hadda ayaan intusi doonaa buttonka. marka hore waan dooranaya kadibna right click ayaan ku dhahay qaybta right click ayaan leeyahay. xaggan linki ayaad ujeedaa soo ma. linkigaas ayaan click siin doonaa. then dialog boxkan markuu inoo soo baxo waxaad arkaysaa inay sheet tabskan ka haysano top 10kii searchkii examski. marka waxaad sheegi doontaa keebuu ku geyn doonaa. kan hadda maadaama dashboardkiiska yahay leeyahay dashboardkiisaas ha igu hayo. Okay, markaan click siiyaba meel ma aadayo ilayn kanaan ku xidhnay soo ma. halkan oo kale waxaan noo dhanaa magacyada inaynu bedbedelo. kan waxaynu geyn doonaa oo kale waxaan dhihi doonaa fee collection hana geeyo. kan oo kale hana geeyo examis. kan oo kale isagana hana geeyo search. kan oo kale hana geeyo top 10. Okay, top 10. good. marka linkiga mid kasta aynu siino. kan xaguu nageyn doonaa linki ayaan leeyahay. waxaad nageysaa ayaan leenahay fee collection tablekaas. good. kan isna waxaad nageysaa linki dheh. Okay, examiska nagee. adna waxaad nageysaa tableka search. Okay, adna waxaad nageysaa linki dheh top 10. good. hadda mid walba wayna geyn doonaa. Okay, la wareegi talo laysiir ayaa ku jiro. sorry iska sugno. yes oo shaqayni. kan isagana examiska ma nageynaya haa. kana searchingki ma la geynayaa yes. top 10 kana ma nageynaa haa. okay, hadda waxaan filayaa inaad aragteen qaabkaan linkiga si fiican inaad u aragteen. okay, hadda waxaynu haddaba waxaan rabnaa inaan soo muujino lacagta. waxaan joognaa dashboardkii. xaggan fee collection ayaan soo dhamaystirnay. okay, waxaan rabnaa marka inaynu soo muujino lacagta la bixiyey. okay, equal ayaan leenahay marka horeysa. kadibna waxaan leenahay sum. waxa iskugu soo kaaya dartaa intaad tagtid tableka fee collection. okay, waxa iskugu soo kaaya dartaa amount paid ilaa halkaa lama iyo lastka. kadibna enter ayaan leenahay.
okay kawar weyn waxaan u bedelaynaa range caadi ah si uusan u qaadan range u bedel hadaad doontid waxaan tegaynaa designka convert to range okay leenahay marka kan iga tuur good kan ball baan ka dhigi doonaa ama aan hadhow dhamayno $40 okay $40 xaggan waxaan 30 plus 10 waa imisa waa 40 good waa saxanahay aan ku noqdo marka lacagta kor u haydaa ayaynu soo heli doonaa iyadana marka waxaan iyadana leenahay equal sum ayaan leeyahay waxaad isku soo kaaya dartaa lacagta naga maqan isugu soo kayan dar interde waa iyadana waynu haysanaa lacag doora bayna ka maqan okay 590 maxaan qaacidada wajiga waxaan leeyahay waxaa isugu soo kaaya dartaa inta tagsi tableka fee collection ile tablekan ay joognaa soo maaha tablekan aynu joogno ka tag fee collectionka tableka la yiraahdo ayaad tegi doontaa kadibna columnka waxaad isugu soo kaaya dartaa amount duuga lacagta ku jirto oo dhan isugu soo kaaya dar that's easy and simple students aynu haysano ayaynu daba iyadana soo tirin doonaa sideen soo tirinaynaa equal ayaynu leenahay waxaan isticmaali doonaa function la yiraahdo county if ma isticmaali doono waxaan isticmaalnaa county if sababtoo ah waxaynu tirinayno waa maxay waa text not numbers county if hadaa isticmaalo waxba la ima soo tirinayo sababtoo ah county if waxa lagu tiriyaa wixii nambaro ah laakiin hadda waxaan rabnaa text inaan soo tirino so waxaan isticmaali doonaa county ifs da la socoto ayaan isticmaali doonaa xagee aadaynaa fee collectionka xageen waxaan kasoo tirinaynaa halkan ilaa iyo halkan ayaa la soo tiri you have entered two few arguments okay what we did here okay ku xiro okay let me check مين خلدان مين عادي so yeah what I did here okay equal ayaan leenahay haye tablekan add waxaa isugu soo keen dartaa ilaa iyo intan enter mobile county baan ka tegay sorry waxaan leeyahay county sorry about that county if ay isticmaalay oo ay ka raali gelinaya halkaas county ayaan isticmaalaynaa county waa tan countydan ayaa waxa loogu talagalay in la mataqaanaa in lagu tiriyo wixii numbers ah county ana waxa lagu tiriyaa wixii text ah sorry about that aad u raali ahaa okay yes hadda maxaan haysanaa 22 balan hubino tolmo 22 hadda haysanaa 22 baynu haysanaa marka dhibtu waxay ka jirtaa aan ka saarno xaggan aan ku noqono qaybtan all ma rabno okay all ma rabno waxaan sameynaynaa fee collectionka add halkan ilaa ma iyo halkan isugu soo keendar good كل laatan haysan hadda muxuu sameynayay wuxuu ku darayay maadaama in headerka ku darnay student name-ka ayuu ku daray koleylaad kaga dhigay ciladuhu inay ku qabsadaan aad ayay u fiican tahay sababtoo ah waxbaad ka baranaysaa okay waxa xaggan inaga rabaa in iyadana ka soo muujino
total students حاجة ما خلصنا total students unpaid ardayda maxaynu samayn doonaa waxaan inaka rabaa inaynu soo saarno ardayda aan wax lacag ah bixin sorry laba unpaid aan noo qoray xaggan unpaid ka dhigno marka okay good hadda waxaynu soo saari rabnaa ardayda bixisay yacni ardayda oo paidka ah okay maxaynu isku soo dardari doonaa maxaynu marka isticmaali doonaa haddaba waxaynu isticmaali doonaa qaacidadii la oran jiray horta marka horeysa equal inoo qor waxaan leenahay marka sum if laakiin waa xaalad moogta waxaad isku soo dardari doontaa tablekan horta aad waxaad samaynaysaa haddii statuskan haddii uu yahay paid okay no count sum if maaha count if ayaan leenahay statuskan haddii uu yahay paid iskugu soo kaydar taloma hal qof aa bixiya lacagta baan fiirino yes hal qof ayaa paid ah okay aan ku noqdo qaacidadan ayaynu koobiyeyn doonaa control c okay kan labaad ayaan tegayaa v ayaan ku leeyahay xaggana waxaan ka dhigi doonaa maxaan inaga rabaa partially paid soo ma then waxaan leenahay partially paid xaggan iga soo qabo isagana 1 miya aan hubino yes waa hal qof ku noqo haddana control v dheh xaggana waxaan inaka rabaa unpaid waa dadka aan lacagba bixin ardayda aan lacagba bixin way badan doonaan kuwii runtan yes 9 okay waxaynu ka dhigi doonaa ball ilaa 16 meelahaas gaarsii labadan aan ku darno laba xabo good waxaynu iminka haysanaa total fee collected xaggan marka labadan dollar ayay u bedeli doonaa maadaama ay lacag yihiin qaybta numberska waxaan ka dooranaynaa dollar waa lacag laakiin intani waa dad waa wax lasoo tirinayo waa numbers soo sidooda ayagu ha iska ahaadaan good waxaynu diyaarsanay fee summary tablekii waxaynu kale oo dhamaystiranay tableka fee collection soo baartigan intan ayaan ku joojin doonaa waqtigu aad u dheeraanaya maadaama sharaxaad dheeri ku darayno so part 2 insha Allah part 3 iyadana sida ugu dhaqsaha badan ayaa iyadana soo gelin doonaa insha Allah inay aad fahanteen ayaan rajaynaya wixii su'aal ama aad fahmin qaybta comment section ka ayaa noogu reebi doontaa channelkana subscribe ugu cimaamad. Assalamu alaikum.